quraanka aanu aad u akhrino tasbiixda iyo wardiga aanu ku dadaalno salaada jamaacada safka hore iyo jamaacada inaanu ku ilaalino waqti walba daqiiqad walba ee kamida ee ramadaanna inaanu ka fikirno meesha aanu ku bixinayno maadaama uu yahay daqiiqada qaali ah jaanis qaali ah laga yaabo inaysan dib aysan ku soo marin بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا وعنا ونكسن داوديال كسر هذا ورئيس كوبان وعن لي لأنه عالم كصوماليات داعية دكتور شابو بكر حسن مالم دور سؤال ينجع علينا كيف إذا استفرصت الشيخ عن كهلي سؤال شو قال الشيخ وحوي رمضان كان وسدو وحلقة بقى خلافية بدن الدعان بلورت رمضان كو محوك واجبة قرمة ضد المسلمين تاني الصومان واجب نقنصا أستاذ عوكاد أي ضد ما هتسنتهاي ضد المسلمين تا ضمان وحان إن شاء الله تعالى أن نكرر جيننا إن رمضان كا أيودي الجروبان وفرصة غالية ولقي أبو عمر جاجا إن يسن مرضن بها أيسن كسامرين مركا عوك سؤال شدي ويديسي وسؤال مهم وحوي دي رمضان كو حكوة جبا الشروع iyo waxa uu iska leeyahay asbaab ramadaanka uu ku waajibo asbaabta walaalayaal koow waxa ka istikmaal shahri shacbaan waa bisha shacbaan in la xaqiijiyo inay dhamaatay haddii la ogaado bisha shacbaan in ay dhamaatay waa waajib in la soomo waxa sidaas oo kale asbaabta kamida ramadaanku uu ku waajibayo haddii qaadi sharci ah uu jiro markaa oo qaadi sharci ah agtiisa ay ku sugnaato in ramadaankii markaa uu dhashay ama shacbaankiiba uu dhammaaday waa waajib wujuubkaasi marka weliba waa wujuub caam ah oo si guud bulshada dhan inay u wada soomaan ayaa waajib ku ah haddii qaadi agtiisa uu ku sugnaado in bishii qof muslimuhu uu arkay wixii ka soo haray waa wujuub gaar ah ama khaas ah oo waxa weeye dee qof aad ku kalsoon tahay ayaa ku sheegay oo muslim ah qof muslima ee caadil ah oo ku kalsoon tahay hadduu ku sheego waajib ay kugu noqon shakhsiyan inaad adigu aad soomto maxaa yeelay nabigeena sallallahu alayhi wasallam nin acraabi ah oo keligii ah ayaa u yimid oo u sheegay inuu bishii uu arkay nabigu uu ku soomay dadkiina wuxuu amray in ay soomaan marka asbaabtaas ayaa ramadaanku uu ku waajibaa waayahay shaabukar waxaa kaloo jirta maciishadii inay sare u kacday dad badan oo sooman ayaa laga yaabaa waxaanay ku afurin inaanay haysan maxaa baaqo ganacsatada u diraysaa waa mahadsantahay cawke waxaan baaqab ganacsada aan u dirayno waxaa weeye inay bulshada ay u naxariistaan waxaad ogtihiin ganacsatada walaalayaal xaalad iyo duruufo adag ayaa waddanku wajahaya waxaa waddankeenna soomaaliya uu wajahayaa duruufo aad u dhib badan oo ay ka mid tahay sicir bararka abaaraha dagaalada colaadda waddanku uu ku jiro sidaas awgeed walaalayaal nabigeenu sallallahu alayhi wasallam waxaa jira dad shakhsiyaad ah awsaaf iyo tilmaamo ay samaynayaan nabigu ugu duceeyey sallallahu alayhi wasallam marka ducada inaad nasiib ku yeelataan oo gacan weyn ducada aad ku yeelataan inaad ka faa'iideysataan waxaa jira xadiis bukhaari uu saxiixiisa ku warinayay oo nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam raxima allahu rajulan samhan idaa baaca wa idaa ishtara wa idaa iqtada ilaahay ha u naxariisto qof gacan furan oo deeqsi ah oo naxariista marka uu ummadda wax ka iibinayo oo ummadda uu wax ka gadayo qofka beeca ugu tura dadka walaalihiisa muslimiinta ah ilaahay ha u naxariisto ayuu yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam marka waxaan ugu baaqaynaa ganacsatada in ay ka faa'iideystaan ducada nabigana ay galaan oo raxmadda ilaahay subxaanahu wa tacaala si ahalkooda iyo naftooda iyo awlaadooda ilaahay ugu naxariisto inay beeca ugu naxariistaan oo sicir bararka zaa'idka ah ummadda ay ka daayaan maadaama waddanku duruufo adag ee abaar iyo colaad isugu jira waddanku uu wajahayo shaabukar waxaa jira dad badan inay maankooda ka guuxayso sidee ramadaanka aan uga faa'iidaysanaa bal si kooban qofka muslimka ah sidee buu ramadaanka uga faa'iidaysan karaa ramadaanka walaal waxa looga faa'iidaysan karo waxa ugu weyn waa in qofku wakhtigiisa uu ilaaliyo awalan waxyaalaha inta badan walaalayaal
oo dhibaatada ay dadka ka soo gaarto waxaa ka mid ah dayaaca wakhtigii oo wax jadwal ah iyo wax nidaam ah aan noolahayn marka waxaan uga faa'iidaysan karnaa ramadaanku waa deeq rabbi subxaanahu wa tacaala uu ina siiyey saacad walba iyo daqiiqad walba ee ramadaan ka mid ah waa daqiiqad ilaahay agtiisa qaali ka ah marka daqiiqadahaas qaaliga ah inaananu ku lumin gidaarada iyo fadhi ku-dirirada iyo sheekooyinka iyo fiirsiga facebooka iyo youtube-ka iyo waxyaalaha la midka ah oo dadka dhallinyarada cumrigoodii baabi'iyey inaannu waxyaalaha aad aannu uga digtoonaanno oo aannu uga faa'iidaysanno inaannu u soomno sida sharciga ah qur-aanka aannu aad u akhrinno tasbiixda iyo wardiga aannu ku dadaalno salaadda jamaacada safka hore iyo jamaacada inaannu ku ilaalinno wakhti walbaee daqiiqad walba ee ka mida ee ramadaanna inaannu ka fekerno meesha aannu ku bixinayno maadaama uu yahay daqiiqado qaali ah jaanis qaali ah laga yaabo inaysan dib aysan kuu soo marin ugu dambayntii waraysiga waa iska soo gebagabeynaynaa kelmadda ugu dambaysa ee aad bulshada uga tegi lahayd shacabka kelmadda ugu dambeeya bulshada ugu tegi lahaa waxaa weeye walaalayaal ramadaanku waa bishii dembidhaafka waa bishii cafwiga ee dad badan ilaahay subxaanahu wa tacaala naarta uu ka xuraynayo sida xadiiskii tirmidi uu sunankiisa ku wariyey nebigu sala allahu calayhi wasalam uu ku yidhi walilaahi cutaqaa'u min annaar wadaalika fii kulli leyla ilaahay habeen walba habeennada ramadaanka ka mid ah dad ayuu xoreeyaa oo cadaabkiisa iyo cadhadiisa ilaahay uu ku xoreeyaa oo liiska ahluljannaha ilaahay uu ku qoraa sidaas awgeed bishani maadaama ay tahay bishii naxariista bishii dembidhaafka waxaan ugu baaqaynaa dadka muslimiinta ah ayna dhegaysanaya ina daawanaya in ay iscafiyaan oo qalbigooda ay isku furaan oo qabiil ay isku cafiyaan oo siyaasiyiintu ay iscafiyaan oo culimmadu ay iscafiyaan oo derisku ay iscafiyaan si ilaahay naxariistiisa subxaanahu wa tacaala aannu u helno ilaahay wuxuu leeyahay waliyacfuu waliyasfaxuu alaa tuxibbuuna an yakfir allaahu lakum war dadku ha iscafiyaan ha isku tanaasulaan sow ma jecla in ilaahay iyagaba uu cafiyo oo ilaahay dembi dhaaf uu siiyo marka inta annagu aan iscafinno ayaa ilaahayna na cafinayaa marka albaabada naxariista waxyaalaha lagu helayo waxaa ka mid ah quluubta qofka walaalkaa u fur qofkii ku dulmiyey miisaankaaga xasanaadka ayaa ilaahay kuu saari aannu iscafinno ramadaankana aannu ka faa'iidaysanno waa deeq weyn oo ilaahay uu nagu mannaystay hada wabilaahi towfiiq aad iyo aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxa waa daawadayaal fadiilatu daaci doctor sheekh abubakar xasan maalin waraysi kooban ayaannu la yeelanaynay shaawkar aad iyo aad aa mahadsantahay qur-aanka aannu aad u akhrinno tasbiixda iyo wardiga aannu ku dadaalno salaadda jamaacada safka hore iyo jamaacada inaannu ku ilaalinno wakhti walbaee daqiiqad walba ee ka mida ee ramadaanna inaannu ka fekerno meesha aannu ku bixinayno maadaama uu yahay daqiiqado qaali ah jaanis qaali ah laga yaabo inaysan dib aysan kuu soo marin